كمؤمن إلهي بهر تاجيه دبتنا الرب الله هضليا إلهي وحكوليه هداد عنك التوصي له لسانه وكو جوابيه الحمد لله رب العالمين مركات هذا حمدني عبدي بان يا رب لي أدون كيبا إما هدنغي إما هديي الرحمن الرحيم مركات هذا أثنى علي عبدي بان أدون كيبا يا ماني مالك يوم الدين مركات هذا مجدني عبدي أدون كيبا يويني إلهي وكو هضليا لكن هدانا دوغين بين الفاتحة أخرج ضيّينا أخرج الحمد لله رب العالمين لكن حساب تادا تكودت إمامكم مركو السلام عليكم يلون بد براركتادنا السلام عليكم تري نش شيطان لا يراهدو خطرها أو قارة صلاة هاي نجا شقية إمك هداد عنا عنيسو وحكي لما كيف فكرتان سعنا ضمن هم تاكو هايسا فكر ميسي هذا تيفي قد داونيسا وحكي لك كيف فكر ميسي واسكا داونيسا وحا وشيء يوم بعد أركيسا أنتو قف لها الله وحكي لك كيف فكر ميسي صلاة ده مركا دوك عدا بدوني ده لصاي أورورينيا markaad waxa kala qabanayso shayga camalkaad hayso baad ka fakaraysaa shaqo kale markaad hayso dhan hadaad imtixaan ku jirto isaad ka fakari hadaad shaqaysanayso shaqadu maad ka fakari hadaad waxaad qabanaysaa kale ka fakari mar allaale markaad salaada isu taagto ayuun baa qolo kale imanaysa una markaas baa adduunka lagu soo ururinaya idan saadaradeed nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam mid baa tukado salaadiisa 10% leh mid baa le baa la yidhi tusuc waa 1 على 9 waa xawaalay less than 13% meelaha soo noqonaya mid baa le thumunkeed baa la yidhi 1 على 8 1 over 8 mid baa le ilaa iyagu nabigu soo gaarsiiyey nisf mid baa le 50% salaadiis idan salaada waynu ku jiraa oo safka waa wada taagannahay cinda allahi se waxa la qorayaa isku noociyaad maaha salaadiina way asaxdo shuruudeedii waynu samaynay laakiin markay ilaahay agtiisa joogto isku nooc noqon mayso marka waxa laga yaabaa nin 20 sano tukanayay mid sanad tukanayo saadiq ahaa inuu kaaba ajar badan yahay sanadkiisu sanad mintida oo soo jeedo rabbi uu caabudayay idan anigu waligay baan soo waday kan yar muxuu sheegay waliga qof ay yaraysan muslima garan maysid cid laga aqbalay garan maysid adigaagi 30 sano soo waday waxa laga yaabaa inaad 10% waligaaba waday ama zero ba qaarkood ay ku dhaceen damid mintida haduu yimaado 50-50 laga aqbalayo shantaadii maalmoodba maalin isaga shantaadii sanadoodba sanad isaga bay noqonayaan idan ku ka badinaya idan markaynu qubuulka ka waramayno waxaynu ka waramaynaa amma fil qulub wa mar waxaynu ka waramaynaa mawaanic khaarijiyin aan jirin wax manciyo joojiya salaadaada in la aqbalo مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حليه ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا حديث ابن ماجه حسن كان صدح صلاة دودة تاكين لك مدحودة بمدافته مدنا اكسونو صلاة دمر كينو دهنا لما اقبالين معنى موحوية وتسوع لنيسا مايا أجزاءت وقدي صلاة نمدي لقو قبصن ما يا آخر لقو ملا صلاة دي متكنين آخر أنت لقو سوى تاقل ورن ما يني كريم حي صلاة متكنين لكن ده قبصة شقورة ما أسعنين 71 هذا شرور رصته 71 لأن هذا الصلاة بي لما الصلاة انت ودا حيث تكفر ما قبلها صلاة كالدين بقدين كام يدو لكن برضه سؤال سويدية ونيو صلاة ولا صلاة كحيت هدي دم بقى ما يرسى مثلا رمضان إلا رمضان محي ما يرسى أما جمعة إلا جمعة محي ما يرسى ده تادو مدير الناقص صباح هذا واحد بدل ما يمايد مركي هراد 10% يا 5% يا 15 مركي هذا اسكو شابا يستال لغا يابا إني محي شنتي وحوغا ما يدو جمعي وحوغا سو هدي برد ما يدو رمضان دينتي سو هدي برد ما يدو ده دالك بدي سو ولا غا يابا إني اسبير سطو لكن النبي عليه الصلاة والسلام صدح صلاة دودة مدحود الله ما فيه رجل أما قوما وهم له كارهون بنبور نندط شوب سكاها يستو صلاتك يوان رمين سلاديس وخطر جملاك دولة دن يددن قصب كوها يستانا مدام يانو ملايين يدي دي صلاة قرى هل صلاة كيكو يستاذن وحبالين كأن أمة دان سكاف ضوفتينا ملا مداميو لكن حديث كناس كيسوح شيء من أما قوما وهم له كارهون ننك دد إمام النغضة إيقون نعب وان ربن ولذلك أئمة مساجد يرقى مساجد التكية وحكا وحف يعني
inuu qulubta dadka ilaaliyo oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya oo masaajidka inaan lagu haysanin uun maxaa qorsakaara ma tiraahdaa maxaa tiraahdaa inaanu iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubta inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan sidaa ogeed buu nebigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso wamra'atan casat zawjaha xataa tarjicna xadiis kale sheegayay ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan laba walaalo oo ka laalaada xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kastaoo laa yushriku billahi shay-an marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo xadiidkii sheegayay saxiixaynka ku yaallay laba mooyaane buu nebigu yidhi labadaasi waa kuwee laba ishaysta iyaga waxaa la idhaha andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilahay yidhahda intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa qofka mu'minka ahi nebiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay qalbi caafimaad qaba sidaa awgeed waxyaabaa jira camalkii inaga burinaya ama in cinda allahi maqbuulu noqdo xumaynaya masalan qur-aanka ilahay wuxuu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa war kuwa iimaanka laga helayo waxaa ilaahay dartii ula baxdeen adiya dhib iyo gallad sheegasaha ku burinina haddaad intaad wax bixiso un ka daba hadasho ninkaa beraan si fiican u galay qoladaa biil baan u diraa maalin kasta lacag joogtaabaasi ha iska burinin waad dirtay ajar baad doonaysaa ilaahay baad la baac mushtaraynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysa haddaad adduunye ku doonaysa waa halkeed ood salada isna markiisaa ku abaalgudo laakiin asalka qofka mu'minkii waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanaya waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato markaad bangiga tagtay accountka lacag ku shubato sooma rumaysnidan adigu leedo account ku shubatay tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay inay tahay kayd adigu aad kaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimkii saasuu u fakeraya waxaanuu la baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahy inaad sheegto oo aad manni aad dadka ugu gallad sheegato amase adiya iyo dhib inaad ka dabageyso sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalaa masalan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kale rumaysta wuxuu sheego maxay xadiis riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inaan 40 yowman maxay camalkiisa la aqbalin oo 40 cisho camalkaaga la aqbali maayo haddii la yidhaha miyaad salaadaha iyo waxba iska dirisa maya waxba waa tukanaysaa waayo dimadaadaad rabtaa inaad beri yeesho tajzi'uk qadaa lagugu yeelan maayo laakiin dee ajarkii la rabay ayaad iskaga lugoynaysaa halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahannahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu wa tacaala inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qurunka ka tirtirno inaynu maxay qalbigeennu uu noqdo qalbi soo jeeda waayo maa fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisan yihin baynu waxa qalbiga ku jira oo maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu yihi hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadli bato ka dheereeyey 100,000 oo dirham buu nabigu yidhi 100,000 oo dirham si uga badanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay culammadu leeyihin dirhamkan uu sheegay maalan markaad soo qaxaysay ama markaad soomaaliya ka qaxdeen adigoo aan waxba haysan oo $10 sita xoolo waanay kaaga dambaynin oo waddana aad garanayn joogo dee 10kan lexe jeclo ka badan boqolaalka kuwa haystaa kaaga jira
haddii aad mid 5 u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan. nin balaayiin iska haystaa hadduu in yar ka xoobiyo uu mid u tuuro 100,000 isaga agtiisa $5 qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay 100 kani. idan xaaladda aad ku sugantay iimaanka qalbigaaga ku jira ilaahay sidaad u weynaynayso aakhira sidaad u hunguraynayso waxaasa waxay qiimo u yeelayaan cibaadaadkaad la imanaysaa intay leegtahay. marka camalka lama yaraysto, dirham ha noqdo ama 2 ha noqdo ama ha ka batee camalkaaga ha yaraysanin. xataa waxa axaadiistu tilmaamaysaa tawxiidkeennu sow laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma wada lihin dhammaanteen, sow dad muslimiina ma wada nihin. xataa laa ilaaha ila allahdeenu isku qiimo maaha aakhira markaynu tagno, isku qiimo maaha. waayo axaadiista nebigu waxay sheegaysaa calayhi salaatu wasalaam qaar aakhiro tegey oo tawxiidsaday laakiin dembiye galay, dabeetana dembiyadii ay sameeyeen lagu ciqaabay oo cadaabka galay, laakiin cadaabka ku waari maayo. horta laa ilaha illa allah mar kasta waxbay taraysaa, waayo cadaabka inaad ku waarta habay kaa ilaalinaysaa. gaalkaa cadaabka ku waaray qofkii muwaxidka ahaa xataa hadduu cadaabka galo wuxuu ku jirayaa maxay muddo, laakiin dee muddadaa ilaahay garanaya. 1 milyan oo sano haddii lagu cadaabo ka war, haddaad tidhaahdo kolley waad tawxiidsanaysaa naarta waad ka soo boodiye, boodisteedu ma fududa. marka walciyaadu billaah ilaahay baan ka magan gelaynaa. laakiin waanad ku waaraynin, waad ka soo baxaysaa aakhirkii. waxaa kaloo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid inta la soo taago la keenayo 99 sijilla, 99 fayl baa la keenaya oo dunuubuu galaya. kan ma gashay, kan yaa rabbi haa buu leeyahy, waa qiranaya. waxaa la leeyahy wax xasano aanu kaa dulminay miyaad garanaysa? wax xasanaadkaagii maqan oo aan meesha ku oolin miyaad garanaysaa? may buu leeyahy yaa rabbi. xadiidku wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa xasanaanu ku haynaa weli, mid baa kuu hadhay. dabeetana bataaqa la keenaa buu nebigu yihi waa kaadh. sijillaadka waxaa la yidhi mashriq iyo maqrib bay sijil weliba uu taxan yahay, tani laakiin waa kaadh, waa bataaqa. bataaqa la keenaa, bataaqadaasi waxaa ugu qoran tawxiidkiisii. dabeetana waa la saaraa miisaanka. wuxuu xadiidkaasi tilmaamayaa inuu bataaqadaasi waxaan oo dhan ay ka cuslaan doonto. yacni waxaa meesha ka cad dadkii wada tawxiidsaday inaan tawxiidkooda isku qiimo goynin. qaar dunuubtii ay galeen ee zinadii iyo rabshadihii iyo wixii ay galeen inuu wada maydhi kari waayey, dabeetana in naarta lagu soo daahirinayo. qaarna waxaa la tilmaamayaa tawxiidkiisa culaysku leeyahay ilaahay siduu u weynaynayey uga cabsanayey ee rabbi qalbigiisa u deganaa, tawxiidkiisaasi inuu miisaan weeye oo dunuub badan uu la degayo tawxiidkaasi. haddaba waxaynu leenahay acmaasheenna waxay u baahan tahay kow atanqiya, intaynu nadiifin karna inaynu nadiifinno. waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno, waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo. dadka inta badan how much you earn un baynu isweydiinaa, waxay doonaa kugu soo galo. laakiin waa mushkilad. waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay, waxa kale aakhira iyo adduuntoona anfac ma leh.